ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka بسم الله الرحمن الرحيم داوديال dhegeystayaal ifiiriyaal iyo eegayaal waxaan u malaynayaa inaad diyaartihiin caawo qalankii warqadda isla haysataan meel kastoo aad dunida ka joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu sharifi korkiina ha ahaato asxaabta qaaliga ee ku xiran janaalkeena qaaliga ah oo alaaba aan kala hadalno barnaamijyo waana dhaqteeyo caafimaad caawo waa ka duwanahay waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan u kala saarno xumaha samaha iyo wanaagga marna inaan kala hadalno caafimaadka intaas ayaan u shaqeynaa haddii aad nagu cusub tahay markii ugu horreysay aadna soo baaqata ay tahay waxaan kaa codsanaynaa walaalkayga qaaliga ah inaad subscribe like waa mahadsan tahay maxaan hayaa caawa sidee lagu ogaan karayaa qofka inuu been sheegayo beenaale adiga idaawanaya ma aha laakiin beenaalahan ka hadlaya brada waayahay qalin waa haysataa u malaynaa waxaa jiro qaabab badan oo lagu ogaado inuu qofku been sheegayo sida dhaqaaqa luuqadda jirka bini aadamka dhaqdhaqaaqa ay luuqadda jirkaaga body language waxaa lagu ogaan karaa inuu qofku been sheegayo inkastoo ay jiraan dad xariifiin ku ah ama professional ku ah oo loo yaqaano professional liars dadka beenta dadka u qanciya iskuna daya inay dareenka luuqadda jirka xitaa xakameeyaan luuqadda jirka xitaa waa la xakameynaa luuqadda jirka hadalka luuqadda midna waa speaker iga soo baxaya midna waa jirka hadlaya brada waa la xakameynaa yani heer ay gaareen khatarnimadooda no ma fahanti calaamadaha lagu garto qofka bini aadamka ah ee jireed ee beenta ku sheegayo ko walaalkayga daawanaya soo qoro adiga ma haya beenaalamantii kakaa dambeeya malayna waayahay ko qofka bini aadamka beenaalaha waxaa lagu yaqaanaa gacan saarid afka gacan saara markuu kula hadlayo iyo sanka cuncunaya macna daawadayaasha qofka beenta sheegaya markii laga hadlayo sanku badanaa dadku marka ay been sheegayaan waxay saaraan gacanta afka iyo sanka sababtoo ah waxaa jira hormoon loo yaqaano adrenaline mar alla marka qofka us yiraahdo qofkan qanci been sheeg maskaxda dheecaan baa la soo daynaya loo yaqaano adrenaline oo inta badan qanjirka wuxuu ku yaalaa keliyaha dushooda adrenal glands baa loo yaqaanaa ma event adrenalku soo daayaa sanka iyo afka qofka cuncun buu ka markaa dareensiinayaa markuu been sheegaya xaalad cuncun suuleeya mataqaanaa brada wallaahi ma malaynayni no saana ahayd marba hadduu sidaan ku yidhahdo wuxuu kuu sheegaya fals event aan kula kaftama maxaa dhacay muraayad haddaan dhiga maxaa umalaysa inaa ila ibirka ahaa xaadi ah sama maxaa kugu dhacday waaye intaas qaybteena kaftanka qodobka koowaad sidaas waa qofka bini aadamka qodobka labaad dhaqdhaqaaqa indhaha miriq qofka indhuhu dhaqdhaqaaq ka sameynaya weliba dhaqdhaqaaq zaayid ah qofka beenta sheegaya indhaha ayuu kor u qaadaa ku eegi kara kalsoonihu kugu fiiriya ma jirto dhinacuu rabo u leexinaya markaa iyada ah bidix midig intaba markaa iyada ah sidoo kale libiqsigiisa indhahana way badanayaan sidan day libiqsiga indhahuna way badanayaan libiqsi dadka garanayn malaha waa indhaho istaa taabta markaa waxay inta badan ku badan tahay ragga tani arrinkan sheegaya waxay ku badan tahay ragga waxayna ka mid tahay indha marmaridda sidoo kale ay rabbin wax loo yaqaan indhuhu marmaranaya
وفانتان مالينا قلب كسدحات عدك قفك هدو ربينو هذا الكبوبسينو si tartiiba oo fikir badan ku jiro ayuu u hadlayaa wixii soo xasuusanaya oo caadi u hadlay marka ayada oo maxay u badan tahay qofku been sheegay u badan tahay marka arrinka nooc hadii qofku yiraahdo qof hadda tiraahdo imika magaca aniga ya maxaa tiri aniga haduu ku dhaw magaciisa qof soo xasuusta ka war mushkiladu waa ilaahay ka baqanimayo beenta lama fiicno beentana ilaahay marale kama waa calaamatul munaafiqnimo gabadha ay daawanaysa iyo wiilka ay daawanayo dhalinyarada inta badan la yiraahdo been bay sheegaan war gabar wiil wada gabar qabta xaas leeda gabadha kala been u sheegin runta u sheeg waxa tirada ilaahay bay ibni waan nadno ku raba laakiin dadka wallahi aniga maradu saad ka war wallahi ani may hadda ka horan qabi jiro waa kala tagnay waa joogtaa markaas fahan gabadha daawanaysay waayahay sidoo kale qofka haduu hadalka uu ku dhagdhago oo yeesho iyana sidaas si lamid ah ayay inta badan tilmaamaysaa inuu qofku been sheegayo marka ayada walaalkayga daawanayo qodobka afraad ku celcelinta hadalka qofka duu hal eray ama hal barnaamij ku celceliyo marka uu been sheegayo hal eray ama jumlad ayuu badanaa ku soo celceliyaa qofku si uu qiil ugu daysto ama uu ku adkaysto sababtoo ah wuxuu doonayaa inuu shakiga ka saaro qofku وكاقنا والله واكو جعلها والله واكو جعلها والله واكو دمنا ما ترنب كوكو سعلنا حسبنا الله ونعم من كلام هذا كل شيء جاية هذيك دعوانا قف كدو مركز اسكت عارنا سي كل شيء ولا جرا في شيء وهو هذا الانسان والله 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 نو قف كوين عادي كل هذا هذا بلن قاضي سنه دارني هذا قف ولا كحوشي سنه دارني قف كسن نظيف وحوشه قنعي حرام وي qofka inaad been u sheegtad ku qanciso waa calaamatul munaafiqnimo qofka inaad wuxuusan ahayn ku tilmaantan waliba waa calaamatul munaafiqnimo dadka waxaan rabaa inaan u sheego dadka bini aadamka gadaashooda ka hadlay ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala raalli kama ah qofka walaalka ka leexo shaqadiisa wax ka sheegin dulmiga ka daa haduu aniga tusaale aan hadlaya taxta erar galo ama qoraal yar aan erar galo Soomaalidu wax loo yaqaan mataqaana waa isdabagalid عيب وي عيبها قفك ولالكاغا لوغما مشغوله ولالكاغا مسلمكا يداونايو يانا كبخ الموضوع دغيستيال داود لا ديتا marka ugu horeysad nasoo booqatid channelkeena channelka waa Sakhaawuddin channel waa walaalka muslimka fadlan ku caawi subscribe african baa taymada way Soomaaliyeed adigana daawana kula hadlayna waata qodobka afraad waxa weeye ku celcelinta hadalka ama hamlu jumlad ama hal sentence haduu ku celcelinayo ka qarcinayo kuna dhaaranayo maanta dhan waa beenaale qodobka shanaad ee ugu dambeeyay barnaamijkeena arnaa calaamadaha lagu gartay barnaamijka beenaalayaasha isbedelka neefta qofka neefta qofku qaadanay neefta isbedelaysa ama hawada uu qaadanay wayna dhacdaa marka uu qofku been sheegayo neefta aad ugu badata ama hoos ugu dhacda ama way kordhaysaa hyperventilation buu keenay ama hypoventilation beenaale botole waa lagu fahmay saaxiibniyo dada ilaahay wax baray baa soo saaray dadka beentu sheegay qofka beenta badan u fiirso umada kale waa ka duwan kalsooni male deganaan male xasilid male wuxuu sheegayna male confidence male kalsooni sababta wuxuu sheegayaa beeraba ma event qodobka labaad wiliga walaal toosnow adiga daawanaya daacadan how straight baad noqo wiliga waad guuleysanaysaa qofna xaasid han noqon ku noqonin qofka walaalka wuxuu qabto wuxuu yaqaano waa sax ku dheh wuxuu qaldana haday lacala jirtana aayar ugu sheeg ceeb miya laakiin hadaa tiraad baba iska day wareeg ila meereyso kalmadii ugu caansaneed ee Soomaaliland ka soo baxay afantan umaleynaya walaalkayga daawanayo waxaan kaaga mahad celinayaa daawashadaada quruxda badan waqtiga qaaliga aad nasiinaysid la wadaag waanooyinka iyo talada wax ku oolka ah ee aynu u soo gudbino bulshada Soomaaliyeed anagu Soomaaliya baa naga badan bin ku sheegmay meel walba ay joogaan waa salaamayeen waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ha ilowin ha iga tagin share like subscribe Soomaalidu maxay dhaheen subscribe ka toogso may ani kuma toogsanay brother gacantaada kale ku samxay ka dhibay lacag kugu bixay waa daawada cilmiga ka baday waa maya waxaan ka hadlaynaa waa cilmi wax tayale cidna wax kama sheegayno cidna reaction ka bixin mayno cidna duulaan kuma nihin cidna siyaasad kala hadlaymayno shaqadeena maaha
waxayna soo baranay ayaan bulshada kala hadlaynaa soomaali baa laga helaa nin diblooma aan haysan oo siyaasad ka hadlay never waa mahadsantihiin waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bye bye